هو لله قبنا وبرك إيه هنشلوده هو بشوده هبكادان الدجاجة باهي جيد كهبسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa in halkan aan ka ogeysiiyo dhageystayaasha raadiyaha warsan ee ku soo taxanaa laga soo bilaabo 1994 oo raadiyahan la aasaasay isagoo magaca raadi baydhabo ka soo bilaabay kadibna DMC la dhihi jiray 2006 ilaa waqtigan uu ku shaqeeyo magaca raadiyo warsan in maamulka shabakada warbaahinta warsan uu go'aamiyay in la soo kordhiyo TV online ah oo dhageystayaasha baraha bulshada ay kala socon doonaan wararka ama khabarada ay ka maqlaan idaacada in isagoo muuqaal ah TV warsan online ay kala socon doonaan hadii Ilaahay raali uu ka noqdo marka waxaan ogeysiinaynaa dhageystayaasha raadiyaha warsan iyo bulshada kale ee reer Koonfur Galbeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeedba in ay la socdaan TV-ga warsan online oo wixii maanta ka bilowday hadii Ilaahay yiraahdo akhbaaraadka Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya oo dhan ka dhacaya si kooban oo hordhaca u soo gudbin doona hadii Ilaahay raali uu ka noqdo waxyaabaha shabakada warbaahinta warsan maamulkeeda uu heegsan jiray wiligeedana waxay ahayd in la helo TV casri ah oo ku shaqeyn doona qaab online ah oo baraha bulshada ah sidoo kale waxyaabaha laga fikirayo maamulka ay qorsheynayaan waxay tahay in TV-ga si toos ah sida telefishinada kale ee hadda loo daawado oo kale in isagana waxyaabaha lagu taamayo la hirgelin doono ay yihiin laakiin sanadkan 2020 ka dhawaan bilaaban doono waxaan u sheegaynaa dhageystayaasheena raadiyaha warsan in xaggaas baraha bulshadana ay nagala socon doonaan wararkoodii oo muuqaal ah hadii Ilaahay raali ka noqdo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرسديال ميليسينو فيرسداي تويبوا تي فيغا ورسن تي في حرونتيس دحه magaalada Baydhabo qodobada warka ka fiirsan doontaan way ba kumidaha magaalada Baydhabo oo lagu xusay hal sano guuradii ku wareegatay markii la dooraday Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareenga dawladda Itoobiya oo markii koreeytay tijaabisay dayac gacmeeda madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle oo eedeeg injeediye mucaaradka dhaliilow siyaasadda dalka fiirsadyaal way buwahaminimo jamaace uu sabtanaha galahayta taariikhdana iyo keedanta 20ka bilatum ilamaad sanadka 2019 hana say bahayanaha kumid ee qodobadii warka TV-ga warsan hadana ka dhawaada usigii ofisanga magaalada Baydhabo xalay way bal ku xusay munaasabad lanka dabaal degaayay hal sano guuradii ku wareegatay markii la aasaasay ama la dooraday ee madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareenga munaasabada oo saacado qaadatay way baa ku qayb galay ee madax kumid ee dawladda federaalka oo san ku horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka laamo amaanka isla soo kala madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle ihana kumid ee mas'uuliyiin ku dareerta maamul goboleedyada iyo marti sharaf kale ee ka casuumay munaasabada oo hadallo badan ku jeediyay wayba madaxweynaha Koonfur Galbeed khudbadiis ee qayb ku haytay eedan u soo jeediyay mucaaradka ama dadka sheegantay Baydhabo iyo ku dhiyeen xasuuqa u soo sheegantay taas wal ku jarna guud ahaan fiirsadyaal way bantaa ka gabagabeeyeen warkiisin ku fiirsadaasan TV-ga warsan xaruntiis magaalada Baydhabo warkaan oo shuuriyeysay la dareer siyaasi intii warkan kala mid ereedan ku kulmaana sida iyo nabadgelyo